magaalada Muqdisho oo aan iyadana dhawaan booqday dadkii aan kula kulmay waxa kamid ah madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya mudane Aadan Cabdulla Cusmaan oo dadka intiisa badan ay u yaqaanaan Aadan Cadde mudane Aadan Cadde rasmiyan waxa uu degan yahay beertiisa oo ku taala Mushaani oo u dhow Jannaale markaan Muqdisho kula kulmay waxa uu ka soo laabtay socdaal uu dalka dibadiisa ku tagay waxaana Aadan Cabdulla Cusmaan weydiiyay bal markii ugu horeysay sababta ku dhalisay inuu siyaasadda ku biiro waxay ugu dhaliyay Soomaali qabiil inay ka baxdo oo isku mid ay noqoto inaan wax ka shaqeeyo ay ugu dhaliyay intii aad siyaasadda ku jirtay waxaad ka gaartay jagada ugu sarreysa oo waxaad madaxweyne ka noqotay dalka Soomaaliya xilal kale oo kala duwan dabcan waad qabatay muddada aad siyaasadda ku jirtay ma xusuusan tahay go'aankii kuugu adkaa ee xafiiska kuugu soo maray ama dhibaatadii kuugu badnayd ee aad kala kulantay maamulkaaga siyaasadeed muddo dheer baa ka soo wareegtay marka wax alla wax iga hor yimid oo ama aan ku farxo ama aan madulan ka noqdo ma xasuusto xaqiiqada walaakiin anigu dadaal baan hayay intii horta Israa'iil waxaan qortay anigu 1944 bishii Febraayo yaa qortay waxaan ku dhaartay Soomaali ninka aabbahay hooyada ay dhaleen iyo ninka ahayb ugu sheegay inay isku mid yihiin marka cadaaladaas iyo qabiil diidaas anigu Israa'iil ku qortay waxaan qoray anigu beledweyne inaan qortaan uga soo tagay oo xamar ka qorto Cabdullaah Ciise asaguna ii soo qor marka awalan leegadii waxaan ahaan uu numberkii Cabdullaah baan ka dhigay numberkii 29aad ku horeysay intii qortay anigu numberkii 3aad baan noqday marka hadee anigu waa shaqeeyay intii sababtida waa shaqeeyay Ilaahay waa iga sareeyay laakiin wax ma gooni aan lahayn oo aan ahayn Soomaali inay isku mid noqoto ku dadaal oo contribuire waxaan ahayn ma jirin hadda dalka Soomaalida waxaad ka warhaysaa dhibaatooyin fara badan inay ka dhaceen intii aad ka shaqeynaysay maamulka ama Soomaalida dhan aad madax u ahayd ma saadaalisay oo maamulka jira iyo dadku siday u dhaqmayaan marna ma istiri dagaal xoog leh iyo sokeeye ayaa sidan u dhici doona ma ismaanan dhihin maxaa jira xaqiiqada 7 sano oo presidenta ka ahaa xaalku waa socday in ka soo qaad u dhacayay wax weyn oo dhaco muxuu waxaas aan siraamay saas noqota ma jirin hadda ummadda Soomaaliyeed maxaad u soo jeedin lahayd oo talo iyo tusaale ah waxaan soo jeedin lahaa inay nin walba oo Soomaaliya inuu meel dhigo wax asaga maslaxadiisa khaas inuu meel dhigo oo wax walba ku hormariyo Soomaaliya heshiiskeeda iyo walaaltinimadeeda inuu wax walba u horo heshiiska Soomaaliyeed iyo wadajirka Soomaaliyeed mudane Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cadde oo dhawaan aan kula kulmay magaalada Muqdisho Aadan Cabdulla waa madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya 7 sano ayuu dalka ka talinayay si nabad ah ayuuna xilka uga degay kadib markii doorasho looga helay inta kadib waxa uu weligii ku noolaa dalka gudihiisa haddana waxa uu degan yahay beertiisa oo ku taala meel u dhow Mushaani oo ah tuulo ku taala Jannaale agtiisa Salaanki sare u dhigaysay dhaqankeena wasaaydi kiteena Subhanahu wa ta'ala.